صلاة واسطة يسطا يمين لبالي نقول بمجيه ساكو السلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول يوم بريان هذا في ونسيته يليو حفلتها ما يماطو هذا السادو محافظ ونأكسن وقوصف في عنه هذا سي الله نقطة وحد معرض الله يسوع صار أنا نوي شيء وحن اسمها مرة ويشهد كان يحيى إسماعيل عبدي ملاحظي أهل عدن كي سلقة شيء كين اليوم نكي لحاضرين يا أبو نقول يو مركب بقى محمد علي لويا يا علي يا إذا يروحوا يخدمين بقى البوق هو عرفه لكن سبب ويبقى الجسد السنة قالوا هي حقها يبون يقومها marka taariikhdayna laga caan dadawsha waxa ku atay marka taada boqor koobta ka sheekay hadda ku noqon maayo inta dhaqanka uu hadda ka hadlo oo kooban Ahmed Ismail hooyadii waxa la oran jiray Mulaahi Ibrahim هاو كلام هو أنا عينه كل شيء سلام الله عبد الله هذا الشيء أحلى أبوك عبد الله سوري أبوك عبد الله فرع ودير لي هيك أنا وحوي وافي لي ربعتي وملاحي إبراهيم كمان أنا رغوب بدنا دي وحوي لما حد الشيء وهي تام محمود حاش الشيء marka waxa ku sii noqon maayo taariikhda wixii dhaqanka isaga iyo saaxiibkii Allah u naxariistay labadaba Maxamed Saalax Nuur Fagadana hooyadii caanood baa loo oran jiray watay doonaysay hadii aan leeyahay xaajiyeeyay ina caanood baa loo oran jiray Islaam Muuse Ismaaciil hadii aan leeyahay Cabdullah Xaamid hoodiiriya hadana waa dhashay iyaga labadooda taariikhda markii dhaqanka laga hadli doono waqtigooda wixii hadii aan wax isleeyahay rag badan bay uga weyn laakiin xagga dhaqanka iyo taariikhda wax isleeyahay rag badan oo waaweyn baad uga badishaa de hadda Ali Khalifa abtigay baa qoftay wuxuu yiri hadii sadaadana waa laga nicib yahay markuu ayay Jamal Abdul Nasir bari laga sheekay علي ورعد يلا يرى عليك راعاش برضه حلوة والله كمال عبد الناصر في الشارع أنا وحاسوها الجماعة لك الشيكين مايو أنا تاريخ أنا ويسس ديفتي وأنا هاي والله وذكرنا يعني كل ما نسكرنا أنا الشيء عنا بسوق كورونا وقاعدين يجري على كلافنا نحكي تقول كل ده لكن هو ما يلمد يجري شوغان سبحان الله حكى وقرأ في عنها حكي أسلم تاهان بوي يشوف دعاءها إن كسر هذا ترى ضد كمان ميو كبقايو تاريخ ده ما كل يكتب وشيء لكن هك بدل هذا النور هذا تاريخ هذا الشيء كده يهك كي واحد يقول هاي وحسد تروي كبقان في واحد بدل قوري واحد لكن الدمر عمرك وقفوا بيتوقعوا لك مش بيسبر انت وراك سام مكشك رجع هو وراك بدنا ما كشرك ولا خديه قوي يوسف تعالى نكي لو رجلي لا يعون حيسته سعيد على جيل ومر البحور يشري وان حسستني وحاله قوري يشرين مين لو رجلي الصحاب احمد اسماعيل رجي وحقوري يشري عادي وحقوري يشري بهاي أحمد إسماعيل أنا مركي يقول دبيسي عرف فين يوم نوبيني بريش وكاين دبيسي
markii shirkii boorama loo kacayay halgankii markii lagu jiray dhowr jeer buu noo yimi isagee rag kale waxaan xasuustaa maalintii ugu dambeysay maalin waxaanu ugu qada karinay oo habeenkiina u hoyday guri maxamed xaaji ducaale allah maxayste maxamed xaaji ducaale kaftamayeen annagu raggaa iska dhegaysanayeen baanu hayna markuu waraystay baa leeyi wareer maxamed xaaji ducaale haddii waxaaba meel loo wado buuqa faraha badan ee sanamta axmed oo adna ragga waaweyne haddii alaba raggii soo halgamayay ilaa iyo haddii alaba leeyahay xornimadii soo halgamaatee askarta yareena buuqaysa hadba qaarnimo idhi qaar tolay qaar haddii alaba mucaaradada faraha badan maxay maxaad haysaa sidaase waa ku socdaa wuxuu yidhi meelun baa wax loo wada jidaya korintoodii nin baa yidhi buu yidhi korintoodii kala celintooda nagaga darano aniga ee rag ka mida buu yidhi ragga inaanu halkan ku jiro qayb badan oo ka mida kala celintooda waqti badan nagaga lumaa buu yidhi marka waxaan ka xasuustaa inuu raggii mar walba wax isu jiidayay ahaa hadalladii ay maxamed xaaji ducaale allahu naxariista labadaba is weydaarsanayeen inkastoo anigu ardayga SDF-tana joogay SNM-tana joogay anigu fulayaashii baan ahaa sidaa xisina kaalay ma jeedin dagaal badanna ma arkin haddii arrintaa ka gudbo cali khaliif un baan doonaya inaan kelmad idhaahdo abtiga cali khaliif abti sheekh ismaaciil ninkaa la yidhahdee diinta la hogaamiya waa biciidu ka dhashay ganacsatada ugu waaweynee reer hargeysu ah waa la wada garanaya markuu diinta bilaabay waxaan waa ninku waawaashay horta hala xidho waxaa wadada wax ka wanaagsan horta ma jirin anigu waxaa sababta qoladii abtiyaday waxay odhan doonaan cali waa ninka leeyahay somaliland iyo wadahaye hala xigay odhanaya horta haddaan lagu xidhi waa naga tor wanaagsanta waxaan la hubaa inaad wax wanaagsan wado haddaad see wado waxaan leeyahay halkanka aada wado eedadii somaliland waa wax wanaagsan waad ka midha dhalin doontaa haddaanad ka caajis sidaa sheekh ismaaciil baad ka midha doonin doontaa waxaad wadaana waa wax wanaagsan waxay u baatay dulqaad de hadduu sheekh ismaaciil maanti aanu war hala xidho ninkii waa kaawaashay hadduu carari lahaa ninka mabda adag wadaa uu adkaystaa horta abta adkaysa wax wanaagsan baad wadaaya dee cali garaad ba haddii aan lagu leeyahay laaya garaad baanu le waataan u soo noqonnay waa lagu soo noqon doonaa wixii wanaagsan aad wado wax badan haddii aad saluugtana somaliland waa la wada leeyahay halgankii aanu wadnayna raggii ugu wanaagsanay ee axmed ismaaciil iyo ka mid ahaayeen midhahoodii may goosan raggii caqliga lahaa may goosan raggii mujaahidiinta ahaa ee ugu wanaagsanaa saraakiisha ugu wanaagsan ma goosan laga yaaba nacasyadii iyo kuwii khilaafka badnaa inay hoggaanka in badan u qabteen baa laga yaaba laakiin inama wanaagsan baa u kici doona foundationka haddaan ku soo noqdo malaa wuxuu u baahan yahay axmed ismaaciil maadaama aynu garanayno waktigiisii iyo naftiisii iyo uu geliyey dalkan iyo halgankiisii waan hubaa inuu abaal u leeyahay in loo abaalgudo ubadku ka tegayna inay tahay somaliland oo dhan maanta waxaynu u baahan nahay malaa halka kan in khudbad badan laga jeediyo waxay u baahan tahay in la yihahdo waxaasaanu bixinaynaa dee horta hadday lacag tahay anigu dalka warograba kama qabo waxaba laygu lacagtii intays buuxisay kabadhadii jiir baaba cunay kol ayaana way noo furfurmi doontaaye ninkaa baanka haystan anigu nin wanaagsan baanu aqaano inflationkii siduu u dejiyey khayr allaha siiye war bahasha jiirka un ha laga ilaaliyo suntii haloo doonaan leeyahay dowladdana waxaa odhan lahaa haddaydan cid kale abaalgudaynin bal axmed ismaaciil iyo raggaa dalkaysi noloshiisii oo dhan geliyey foundatiinkeeda ayalooda koley maxamed kaahini way iga dambayn doonaane wax muuqda kaga dhawaaqa halkan wax muuqda wixii kagooyaa indhagooyaa baa inkagooyaa baa layidhi wax fiican kaga dhawaaqa annagu lacagna ma haysano qoladayda salaadiinta ah markii dawlad adag oo haddii aan lama leeyahay dalka hoggaanka u qabatayna waxaanu ku tashanay
يا الله إذا كجرنا يا وحنا نقولون نحن سلاطين تيجي أنت دولة الجوتي وكحوجا كي نقولون تسمعون عقنا ده كيف مثال هذا هم كبير يروح مني أنا بحوجا كي ما له صوت الهرب ما فروش كده وانا أبي أقول